isma dhaanta in lagu xiro magaalada Hargeysa ma aha wax cusub oo macnaha waxa weeyaan maqalka dadka Soomaaliyeed iyo waliba aragga dadka Soomaaliyeed ku cusub midna ma aha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دمان أصحابتي يا خيرتي قيمها إيجا مضن مال كستو أدون كاد كجوكتان سوال بو مقل إي موقعي قدين سو غاريو ولكن عبد الله مع الحسين وعلى بعد كوضا سعوتان channel كان قروح ذا قويس كتو هدانا قو عصبتها هاي لابنا سبسكرايب إنو سارتو هدي أدنا لسي جوكتي وكم حسنتا إنا تاي صاحب كنا قدو إسلام مركاسينا نلاشر قرايا دمان موضوعي ذا كلا دوان وانكسو قد بنا هالكن هانا إلا بنا طبعا إنا نجلسو حريرتان بيشكا أنا كلنا هاي فيسبوك أي قروح ذا قويس كتو ما يسردين maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arin sina u weyn sina aanan macnaha macno weyn sameeyeen taasoo runtii ah qolihii walaaladeen ahaa isma dhaanto hal doona wada saaranahay oo dad hal doon wada saaran baan ahayn dhibaatada soo gaartana waa dhibaato annaga dhan wada saameysay oo dabcan soo wada gaartay haday ahaan leed jilayaasha iyo haday ahaan leed dadka youtuberada ah haday ahaan leed qaar kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed inkastoo hadda ninkii bagbaro ahaana uu fanaan noqday oo fankii dhinac ka soo galay arintan wayna wada saameysay dhalinyaradan dabcan waxa ay ka bixeen sida la socoteen magaalada Nairobi isla markaasina waxay rabeen inay show iyo kulamo badan la sameystaan dadka taageerayaashooda ah ee magaalada Hargeysa ama guud ahaanba Somaliland aan iraade si nabdoon bay uga baxeen Hargeysa waa ay ka soo degeen laakiin markii ay soo degeen maxaa dhacay markay soo degeen waa la qabtay waa la xiray dhukub okay kulay saacado kooban ayay liinta cabeen kulay waxa maqli jiray hebelo liinta ayuu cabay moogta isma dhaantana waxa weeye waa dad walaaladeena liinta way soo dhadhamiyeen way soo cabeen markii la xiray oo xabsiga la geeyay dadka Soomaalida waa iska taqaanaan ninba dhinacu isaga ay la noqotay iyo sida fikirkiisu ahaabu uga falceliyay xarigan loo geystay walaaladeena Somaliland waa cunsuriyad Somaliland waa halkay ka baxday Somaliland saanay noqotay Somaliland ninba sidii ay la noqotay iyo qaabku isagu rabay ayuu horta warka la aaday laakiin sidaa ma ahan wararka xaqiiqda aanu helayno alxamdulillah horta wiilashii maanta way soo baxeen inkastoo dib loo celiyay oo la yiri waxa tihiin celis aatiin la yiri oo magaalada Muqdisho dib loogu celiyay sidaa ma aha sheekadu kulay de markaad hadlayso oo rabto inaad bulsho wax u soo gudbiso dadka aad wax ka soo gudbinaysana ay yihiin dad kugu mihnad ah oo doonta wada saarantihiin waxa haboon in aadan ku fududaan oo wax badan oo kamid ah inaad iska fiiriso loo baahan yahay sida daraadad marka walaaladan waan la qaybsanaynaa horta murugada soo gaartay iyo dhibaatada soo gaartay aad baan oo la qaybsanaynaa waana ka xunnahay siyaabaha dadku ay u qaateen hadalkana ma ahane horta Somaliland markii la yiraahdo ama Somaliland laga hadlayo Somaliland waa maamul jira shuruuc ayaga u gaar oo ayaga u gooni ana way leeyihiin qofka bani aadamka ama ha xumaado ama ha samaado wuxuu isagu leeyahay in aad ku ixtiraamto way fiican tahay wiilashan sida la sheegay waxa lagu qabtay ama loo xiray si kala ma ahayn dad siyaasad ku jira ma aysan ahayn dad dhalinyaro iska fanka ku jira iyo fanaaniintii hore u soo booqan jirtay Somaliland kana soo laaban jirtay bay qayb ka ahaayeen dad waxay ahaayeen social media isaga jiro arrimo siyaasadeed iyo barnaamijyo kale aan shaqo ku lahayn markay imaadeenna waa la xiray okay markay imaadeen oo la xiray ila aniga aan ku kalsoonahay waxaan ka soo xigtay in documentiga ay ku galeen Somaliland ay wax ka qaldanayeen hadalkii gaad u dhageyso inta Soomaali sawirradooda la soo dhigay inta waxba la walaaqay Somaliland waasan waa Soomaali diid waa dad naceeb waa cunsuriyad waa intaas la lahaa waxa la hubin waayay war nimankan la xiray maxaa loo xiray markii laga hadlayo waxba la xiray ma ahan groupkan isma dhaanto dadkii ugu horeeyay Hargeysa lagu xiro ma aha dad Somaliland u dhashay ee ka soo jeeda Somaliland gobolada ka soo jeeda ayaa Hargeysa lagu xiray intay Muqdisho ka imaadeen airportka koo iyo laba lama dhigi karo oo wada ogtiin laakiin waxa habooneed dadka anagoo og marka ay in lagu xiray Muqdisho maxaad u tagteen laakiin tan waxay ahayd inaan hubino oo la yiraahdo sababta tolo loo xiray maxay tahay inaan sugine nin walba say la noqotay ayuu isaga hadal nimankan waxa la yiri waxa ka qaldanaa dalku galka ama documentskooda wax ka qaldanayeen dabcan de wasaaradahan duulimaadka xaggan Somaliland iyo dawladda federaalku kulay gacan weyn bay ka geysteen Suudaanta wiilashaas iyo gabdhahaas walaaladeena ah alxamdulillah markii la wada hadlay kadibna waa la sii daayay haddana dib ayay u soo laabanayaan magaalada Hargeysa dib ayay ugu soo laabanayaan maxay ahayto waa hamigoodu markii hore wuxuu ahaa inay Hargeysa tagaan oo halka ay kula kulmaan taageerayaashooda
حيالة قفكو تاجروا عليها دون كان قفان تاجر دت كلهن مجرو marka dib ay haddana usoo laaban doonaan safarkoodii Nairobi ilaa Hargeysana sidii bay uga dhabeynayaan wax dhibaato oo kalena ma jiraan dokumentigaana de meel walba ku qaldan yahay qadarkay waad ogaydeen markuu Addis Ababa ka degay asagoo baasaboor wato ayaa la yiri dokumentigiisa wax ka qaldanayeen waana la xiray muddo xirna waana la soo daayay ayagoo hadda de waxa weeyaan habeen u bay xirnaayeen subaxii saakana waxa weeyaan Muqdisho laga tuuray wax dhibaato ama aysan la kulmin wax xabsiga lagu madhax dhibaateen dokumentigaas un baa lagu haystay inta laga soo hubinayna dib baa loo celiyay haddana waa la soo saxayaa dibna Hargeysa way ugu soo laabanayaan oo danahu ay lahaayeen halkii ay ka sii wadanayaan marka waxa fiican dadku markii ay hadlayaan in ay horta kala qaadaan shacabka Somaliland iyo xukuumadda in ay laba ka kala dhigaan inkastoo de shacabku ay xukuumaddan ku hoos nool yihiin laakiin shacabka Somaliland dhalinyaro rag iyo dumar waa kuwa inta isku soo baxeen airportka baabuur inta qaateen ayagoo taagan lahaa wiilashaas xuquuqdoodan u raadinayna wiilashaas cadaalad bay u baahan yihiin wiilashaas ha soo baxaan waa dhalinyaro YouTuber waa dhalinyaro fanka aan ku wada jirno annagu halkan waxaan u taaganahay soo dhaweyntooda ayay ahayd wixii qaylinayay waxay ahaayeen shacab reer Somaliland marka in wixii aan isku wada qabanno oo dhahno Somaliland oo dhan qorigeeda iyo qaacidan isla tuurno ma aha sheekadu nidaamkaas ma aha waana ka xunnahay dabcan wiilashaas walaaladeenna iyo gabdhahaas waxa weeyaan dhibaatada soo gaartay xabsi qofkii soo maray baa yaqaan leedin kaga sheekeen maayo qofkii soo maray ayaa xabsi yaqaan marka dokumentigaana waa la soo saxayaa dibna u soo laabanayaan taageerayaashii ay lahaayeen way la kulmayaan reer Hargeysa wali sidii bay ugu diyaarsan yihiin shacabka reer Hargeysa ee ka gacan geystay ee ka dhiidhiyay isla markaasina is hortaagay in wiilashaas oo xabsiga ay ku sii jiraana waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay wixii annaga aan sameyn lahayn ayaa idinkana sameyseen waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa ku mahadsantihiin kun iyo kow jeer waxaan idin leenahay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee aad ugu soo baxdeen ama aad ugu soo istaagteen wiilashaas walaaladiina ah ee macnaha waxa weeyaan xabsiga la dhigay haddana wax dhibaato ama jiraan xaq iyo xaqaba waa la wada hadlay haday dawladda federaalka ahaan lahayd wasiir ka socda iyo xaqan Somaliland wasiir ka socda ay ahaan lahayd waa la wada hadlay waan la isla gartay wiilasha inay xorriyadooda dib u soo helaan isla markaasina ay shacabkooda caadiga ah ay la midoobaan maalmaha soo socdana ay dib ugu soo laaban doonaan magaalada Hargeysa markii ay soo saxaan waxyaalaha yar ee ka qaldan war inta aan isla fahanay aad iyo aad haddaba marka waxaan isugu soo laabanaynaa xaqan iyo fahamka shacabka Soomaaliyeed waan ognahay oo macnaha waxa weeyaan dad maxkamadoodu ay tahay social media inay yihiin cid horta dah kama saarna laakiin waxay soo weydiinta mudan Somaliland maanta waxay doonayaan in caalamku aqoonsado oo dabcan ay noqoto dawlad jirta arrimaha siyaasadda iskuma fiicin in galgalana ma jecli Somaliland waxay rabtaa in ay ka madax banaanato Soomaaliya inteeda kale waa 1991 ilaa ay haddartan Somaliland mowqifkaas ay ku taagan tahay okay haba ku taagnaatay Somaliland ayadoonan wali aqoonsi caalami ah ka helin dawladaha caalamka aanan aqoonsi ka helin haddii fanaaniin iyo dadkan kale caadiga ee siyaasadda ka madax banaan markayba imaadaan ay Hargeysa ka soo degaan hadday xabsi la kulmayaan Somaliland marka la aqoonsado oo ay adduunka kale la jaan qaado maxaa dhici kara waa su'aalaha la doonayo mar walba in la isweydiiyo oo dadku isweydiiyaan madaxda ama madaxweynaha noqoto ama de ma ha noqoto wasaaradaha kala duwan ee Somaliland waxaan dhihi lahayn war dadkan dhalinyarada iska caadiga ah ee aan siyaasadda shaqada ku lahayn ama fanaaniinta ah ee iska qulqulaya oo meel walba Soomaali degan tahay ama af Soomaaliyeed looga hadlay jecel inay aadaan xurriyadooda ha loo daayo wixii laakiin dokumenti oo qaldan dawladdu xaq bay u leedahay inay inta qabato ay maareeso oo sidii loo sixi lahaa falkeeda ay gasho laakiin hadde fanaan in la yiraahdo maxaad Muqdisho u tagtay in loo xiro xoogaha ma haboona hadda kulli qamar suugaan waa maqan yahay soo laabidkiisa ayaan asagana sugeynaa inkastoo halkan uu maro garow ka baxo halka ka tagay bal soo laabidkiisa ayaan asagana sugeynaa BK laftirkiisu waa diyaarsanaa corona ayaa soo galay bixitaankiisii iyo aaditaankiisii bal magaalada Muqdisho inay wax iska bedelaan in kala ayadana waan ogaan doonaa biidnillaahi alkariim dadku waa dad walaalo ah sinji Soomaaliyeed baa la wada wadaaga dadku dad meel kala jira ma aha waa dad mar walba isu baahan waa dad mar walba isu socodkooda u baahan waa dad laga yaabo inuu ganacsi kala dhaxmaro waa dad u baahan in ay meeshay doonaan ay kaga noolaadaan gay ay Soomaali leedahay
waa dad jecel dadku inay meeshay doonaan kaga noolaadaan sidaa daraaddeed marka waan uga mahad celinaynaa mar kale shacabka reer Somaliland dhalinyarada youtuberada ah fanaaniinta iyo jilayaasha isku xilqaamay in ay macnaha waxa weeyaan u istaagaan groupkii isma dhaanto macnaha waxa weeyaan airportka lagu xiray haddana dib loo celiyay waan rajeynaynaa maalmaha soo socda insha Allah tacaala inay dib u soo laaban doonaan isla markaasina shacabka reer Somaliland ay taageerada badan ka haystaan ay dib ula kulmi doonaan biidhnillaahi albaari inta ayarta ayaan rabay inaan idinla wadaagayo bishaarada in ay maanta groupka isma dhaanto ay free yihiin xorriyadoodii ay heleen walow de Muqdisho laga tuuray waan rajeynaynaa insha Allah tacaala ballankii ay lahaayeen inay dib u sii cusboonaysiin doonaan biidhnillaahi albaari walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen cafi musaamax intaynu barnaamij kalamada dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu